بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والله قيمها لي ميل كسر جوجتان وان سلام يا وحنا رجينا إن شاء الله تعالى إنه وقت في عنات كجرتان إله سبحانه وتعالى وحكبريا إنه الواد إنه حفظيه الله سبحانه وتعالى وحكبريا إنه جنات الفردوس الأعلى إنه كنا سيو اللهم آمين يا رب waxaan ku jirnay taxanihii tarbiyadda toosan barnaamijkii ah taxanaha tarbiyadda toosan saddexda ta oo aan base ama gundhig uga dhigay buuggan anigu aan qoray ee la yidhaahdo sidee ilmahaaga kuu maqlaa faham ilmahaaga farxadna kula noolow inaynu ilmaheenna fahamno farxadna kula noolaano casharkani waa casharkii saddexaad laba casharoo horaan soo qaadanay ama aan uga soo hadlay youtube-kay ku jiraa insha allahu tacaala waad helaysaa meel kasta haddaad cabdalla shafey ku qortid cabdalla shafey youtube channelkayga ku jira insha allahu tacaala waad ka helaysaa labadii casharee hore casharkii koowaad waxaan uga hadlay wuxuu ahaa hordhac qaybtii labaadna waxay ahayd casharkii ka horreeyey oo ahaa aan uga hadlaynay waalidka koo iyo tobanka arrimood ee laga maarmaanka u ah waalid kasta oo wax tarbiyadeynaya qaybtiisa koowaad baan uga hadalnay oo ahayd joogtaynta in wax la joogteeyo ahmiyadda ay leedahay iyo tabaha iyo xeeladaha loo barto in wax la joogteeyo guusha iyo guuldarrada laba qof oo kasta dhinac kasta nolosha ha noqoto hadday ganacsi noqoto hadday waxbarasho noqoto hadday siyaasad noqoto hadday wax kasta hadday noqoto guusha iyo guuldarrada laba qof inay kala hormaraan furaheedu waxa weeye joogteen muhiim maaha garaadkooda iyo garashadooda iyo caqligooda sida la yidhaahdo laakiin furuhu waxa weeye joogtaynta waxaan uga hadalnay ahmiyadda ay joogtayntu u leedahay barbaarinta haddaad doonaysid inaad si fiican u fahamtid ku noqo qaybta labaad buuggana waan si fiican buu uga hadlay casharkeena saddexaad waxaan uga hadlayaa insha allahu tacaala weli waxaan ku jiraa arrintii ahayd koo iyo tobanka arrimood ee lagama maarmaanka u ah waalid kasta oo raba inuu ilmo wanaagsan soo saaro waxaan qaybta koowaad uga hadalnay joogtaynta arrinta labaad ee waalid kasta looga baahan yahay inuu leeyahay waa xakamaynta ama qabashada xanaaqa qof kastoo bini aadan wuu xanaaqa waa dabeecad alle subxaana wa tacaala nafteenna uu ku beeray waana laga maarmaan waayo haddaanay muhiim inoo ahayn hadalkan si fiican dhegeysta haddaanay muhiim inoo ahayn ilaahi subxana wa tacaala nafteenna muu ku abuureen laakiin inay ahmiyad inoo leedahay alla ku abuuray waxa uu loo baahan yahay waxa saxda inaynu ka xanaaqno waxaan saxda ahayn ayna ka xanaaqin laakiin inta badan bilcagsi baynu samaynaa waxaan sax ahayn ayaynu ka xanaaqnaa wixii mudnayd in laga xanaaqana kama xanaaqa marka xanaaq walaalayaa waxa weeye marka ugu horreysa ama faceka koowaad waxa weeye qofkii inuu dhacdadii siiyo macno u yeelo macno markuu u yeelo macnahaas ayuu wuxuu keenayaa qofku inuu ama xanaaqo ama farxo ama ooyo ama laba dhacdo isku mid ah waxaan dhihi lahaa hal dhacdo isku mid ah ayuu qofna ooyayaa qofna farxayaa qofna qoslayaa qofna xanaaqayaa marka dhacdada hadba tafsiirka aynu siino ayaa wuxuu keenaa emotionka ama laxawga ama dareenka aynu siinaynaa noocuu yahay labadan qiso ila dhegeysta si aad si fiican u fahamtaan wiil iyo walaashii ayaa meel ku wada ciyaaray yaryar wiilkii gabadha walaashiis ahayd wixii ay ku ciyaaraysay ayuu ka qaatay gabadhii wiilkii bay dhirbaaxday gabadhii marka wiilkii dhirbaaxday wiilkii wuu ooyey intaasi waa inta dhacday hortoodan ama meel u dhow 4 nin ayaa fadhiya maqaayad shahbi cabbayaan ninkii koowaad wuxuu ka xanaaqay wiilkan yare edabta daran ee gabadha walaashiis ah wixeeda ka qaaday ninkii labaad wuxuu ka carooday gabadhan edabta daran ee walaalkeed dhirbaaxday ninkii saddexaad wuxuu ka carooday wiilkan aan waxba iska celin ee ooyaya aan ragga ahayn kii afraadna wuu ku qoslay soo ma jeeda hal dhacdo isku mid ah qof waliba wuxuu siiyey macno gooniya macnihii uu siiyey ayaa wuxuu keenay inuu qofku caroodo iyo wuxuu ka caroonayo ama inuu qoslo marka sax suurtagal maaha waxaa dhici karta dhacdo adiga ku dhibaysa ood boodaysid oo ilmahaaga intuu sameeyo waalid kaleeto adiga kula mid inuusan kaba diirin uusan oranin uu yidhaahdo dhib ma leh iska soco marka waa muhiim ilmahee inaynu baranno horta nafteenna xakamayno ilmaheennu annagu inaga baranaya wuxuu baranayaa sida dhacdooyinka macno loo siiyo annagu inaga baranaya
haddii koob ku dhaco oo aad booddood xanaaqdid ilmuhu wuxuu baranayaa markuu koob dhaco in la boodo la xanaaqo. haddii qof uu erey yar kugu yidhaahdo haddaad samaysid inaad markiiba booddood ku xanaaqdid ilmuhu wuxuu baranayaa in qofkii wax ku yidhahdo lagu boodo lagu xanaaqo. taasna waxa weeye tarbiyadeenna soo socotay intaynu noolayn haddaynu soomaalinahay ina halaagtay qofku inuu waxaan macno lahayn ka boodo fal aan mudnaynna uu maxaa la yidhaahdaa u la yimaado. dhacdadaas marka waa dhacdadii dhacday waxayna ku xidhan tahay qofku tafsiirka u siinayo. dhacdo lamidaan idinla soo qaadanaya. waxaa jiray nin qoraa ahaayo hadda dhintay la oran jiray Stephen Covey. bugaag badan buu qoray, dad badan baa ka faa'iiday. bugaagtiisana aad baa loo turjumay, luqado badan baa lagu turjumay. wuxuu ka hadlaa bugaagtan qofku siduu naftiisa iyo noloshiisa u horumarin lahaa. waxaanu ka soo qaadanaya qiso cajiib oo aniga runtii saameyn igu yeelato igu dhegtay. wuxuu leeyahay anigoo tareen New York dhexdiisa saaran ayaa waxa dhacday. tareenkiiba waxa soo galay stop ama maxado ama meel uu tareenku istaagaa waxa ka soo galay aabe iyo caruurtiisii. tareenkiiba soo galeen markay fariisteen tareenkiiba ku dhex ordeen ilmihii. aabahana wuu fikirayaa wuu maqan yahay. cabaar baan u dulqaadanay buu yidhi dadkii rakaabka ahay ee tareenka saarnaa. markaanu muddo u dulqaadan weyne ayaan u tegay aabihii waxaan ku idhi war miyaadan arkaynin carruurtaadu waxay samaysay oo ma garanaysaa dadka siday u dhibayso. aabihii markaasuu soo baraarugay. fikir buu ku maqnaa iyo walwal iyo walbahaar. wuxuu ku yidhi waan ka xumahay carruurtan hooyadood baa dhimatay saasaysan xaaladooda u deganeen. isbitaalkaanu ka nimi hooyadood baa deganay, hooyadood baa dhimatay saasaysan xaaladooda u deganeen. dhacdadaas waa dhacdadii dhacday. markii hore ninkan Stephen Covey markuu ka sheekeynaya wuxuu yidhi waxaan siiyey tafsiir ah inuu carooday. kadib waxa dhacday in maxaa la yidhaahdaa ilmihii uu u naxay, uu u tegey, uu la fariistay, uu ka qosol siiyey. waa isla dhacdadii. hadba waxay ku xiran tahay tafsiirka iyo turjumaada aynu siinayno. marka ogow waxa aad ka caroonaysid khasab maaha dadku dhan inuu ka caraado, saxna maaha inay tahay in laga caroodaba. marka waa muhiim inaynu arrintaas la fahmno. dhacdadu tafsiirkeenu siina ayay saameyn inoogu yeelataa. marka waa muhiim inaynu ogaano tafsiirka aynu siinayno dhacdada. wiilkaaga koob yar jabiyey inaadan la boodin oodan xanaaqin. arrinta kale muhiimka waxa weye walaalayaal, marka aad carootid arrin baa dhacday, waad carootay, tabar xoog laa jirkaaga soo gelaysa oo u baahan in tabartani baxdo. mararka qaarkood adkaanaysa inaad xakamaysid oo aad qofka hortaada joogo. waxay ku xiran tahay awoodda intay la eg tahay awood tabarta ku soo gashay iyo saad u xanaaqsan tahay. marka arrinta labaad ee sirta ayna waxa weeye marka aad carootid saad u xakamayn lahayd, saad isu dejin lahayd oo aad shaydaanka isaga naari lahayd. farsamooyin aad iyo aad u tiro badan baa jira sidaad shaydaanka isaga naari lahayd. inta badanna qofka waxa kiciya oo dacfiga nafteenna ka faa'iidaysta shaydaanka oo qofka ku riixa in maxay uu fal uusan hadhow mahdin uusan jeclaanin uu sameeyo. marka waxaa loo baahan yahay inaad baratid farsamooyinka aad isu dejin lahayd markaad carootid, inaad ogaatid dhacdooyinka in macno aanay mudnayn la siinin. arrinta saddexaad waxa weeye walaalayaal rabo inaan idiin sheego, qofku hadduu dhaqan u noqotay ama dabeecad naftiisu ay leedahay inuu markiiba si degdega u caroodo, ma la baran karaa oo ma la baran karaa inaadan caroonin? yes, waa la baran karaa inaadan dhacdooyinka macno aysan lahayn ama ahmiyad aanay lahayn siinin. qisadan aan idiin soo qaadaya waxaa jiray xilli hore magaalada Baqdaad waddanka Ciraaq xilli horeeto nin dukaanle maalqabeen ah. ninkaasi wuxuu ahaa nin xoog leh, qofkay laba eray isla dhaafaanba la dagaalama, laakiin nin alla ka cabsi loo ahaa. aad bay arrintaas u dhibi jirtay. wuxuu go'aansaday arrinta tan siduu uga tanaasuli lahaa, siduu isaga baabi'in lahaa. wuu fikiray. markuu muddo fikirayay wuxuu helay wuxuu u yeeray magaalada ninka ugu afxin ugu cay badan. ninkii uu yeeray wuxuu ku yidhi waa lacag baan ku siinaya caay. maalintii oo dhan buu dukaankiisa la joogay, wuu caayayay, dadkaas soo gelayay, wuu caayayay, wuu adkaysanayay. maalintii koowaad alxamdulilah wuxuu u dhammaatay isagoon wax falcelina samayn. maalintii labaad, maalintii saddexaad, maalintii afraad, isbuuc baa u dhammaaday, 2 isbuuc baa u dhammaatay, bil baa u dhammaatay. markuu arrintaa ka adkaystay oo uu naftiisa inuu xakamayn karo arkay ayuu wuxuu yidhi saaxiibkaana soo kaxaysa mid adigoo kale ah. labay ku noqdeen, sidii bay u caayeen, mudday wadeen. kadib wuxuu yidhi okay, dukaankayga dhexdiisa waan awooday inaan isku xakamayn karo, bal magaaladana keena. magaaladay soo dabagaleen. ninkan oo lagu yaqaanay nin dabeecad adag oo qallafsan oo dagaalama ayaa waxa dhacday. way iska daba socdeen, way caayaan. dadkii magaaladu marka wax filashadoodu waxay ahayd inuu ninkani dagaalamo, laakiin alxamdulilah wuu guulaystay. wuxuu ku guulaystay inuu xakamayn karo xanaaqiisa. haddii aad leedahay dabeecad, marmarsiyaha ka dhiganin oo ha odhanin waan xanaaqaa
markaas sidaa daraaddeed baan u samaynaya oran waa qof mas-uula tahay allena subxaana watacaala waxaadan awoodin kugumu kalifin waxaad awoodi kartid keliya ayaa laguu kalifay oo lagu su-aalaya inaad awood u leedahay inaad xakamayn kartid xanaaqaaga oo alle awoodda uu ku siiyey darteed baa laguu su-aalayaa marka marmarsiyaha ka dhigan inaad tiraahdid maxay waan carooda marka insha allahu tacaala qaybtii koowaad waxaan uga hadalnay hordhac ayay ahayd muxuu ahaa taxanahan tarbiyadda qaybtii labaad ama casharkii labaad waxaan uga hadalnay arrinta ugu muhiimsan ee joogtaynta ah oo waalid kasta loo baahan yahay inuu yeesho qaybta saddexaad oo hadda aynu ku jirnana waxaan uga hadlay xakamaynta xanaaqa intaa wixii ka dheeraada walaalayaal buuggani waa fursad qaali ah aad iyo aad u fiican uma ammaanayo anigu inaan qoray laakiin waxaan idiin sheegayaa inuu yahay runtii buug aad iyo aad u qiimo badan emailkayga iyo telefoonkayga dhinacan hoosead ka helaysaan insha allahu tacaala meel kastoo dunida joogtaanna waan idiin soo diraynaa nala soo xiriira carruurteena aynu fahamno isla markaana aynu farxad kula noolaano insha allahu tacaala kulankeena xiga waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu